السلام عليكم. dagaalkan ka socda Iiraan iyo Israa'iil dhexdooda waxa laga yaabaa inay ummad badan oo Soomaaliya u haystaan waxa warka kaliya ka maqlayaan gaar ahaan haddii warkan dhageysano waxa u badan inaynu dhageysano kuwa Carbaha Mareykanka iyo Ingiriiska waayo kuwaasna waxa weeye hal dhinac oo isku hal narrative ah laakiinse kuwa kale ee ka soo horjeeda sida Iiraan iyo Ruushka iyo Chinese-ka cunaqabateen lagu qabto gaar ahaan xilliga dagaalka Soomaali badan baa u duceynaysa inay Iiraan ku guuleysto dagaalkan haddii ay Islaam isla yihiin xitaa iyagoo kala mabdaha ama qaar badan oo leh Israa'iil hala duqeeyo intaas baa nagu filanba laakiinse ma ogtahay inay dagaalkan Soomaalidu laftigoodu qayb libaax ka qaateen duqeynta iyo weerarka Iiraan lagu hayo dagaalka hadda moodaysiina inuu bilaabmay maanta la ogaan doono qofka guuleysanaya markuu dagaalka dhamaado waxaas waa been waayo natiijooyinka dagaalka waxa kamid ah gaar ahaan kuwa galbeedka inay intuusan dagaalka bilaabminba sanado ka hor la sii qorsheeyo la xisaabiyana dagaalka ma lagu guuleysan karaa iyagoo hubin boqolkiiba boqol inay ku guuleysanayaan weligood ma qaadaanba dagaal noocaasa waxaan waxa weeye xisaab Soomaaliyana waxaad arki kartaa inay ka qayb qaadanayso dagaalkan Iiraan lagu qabanayo maadaama baddoodii lagala wareegay oo Turkidu militarigooda meesha soo dhigteen Ethiopiankina loo ogolaaday inay iyakuna badihii Soomaaliya hub iyo military soo dhigtaanba taasoo lagu talagalay Iiraan in laga duqeeyo laftigeeda Yemen kuwa jooga oo Shiicada oo maalin dhowteekan u hanjabay inay xagaa ka soo duqeeyaan badaha ku yaala Soomaaliya argagageeda ama badda Casba iyo Indian Ocean-ka maraakiibta Mareykanka maraya haddana markaad eegti Turkiga oo Soomaaliya ka helay shidaal balan qaadanay inuu qodo dan baa ugu jirta inuu shidaalka isaga uu ka qayb qaadanayo inuu sida awgeedna Iiraan ka soo horjeedsadaba haddana Ethiopia laftigeeda oo iyaduna maanta qayb libaax laga siiyay in adduunka economiga kor u soo kacdo oo Sacuudiga iyo wadamadaas oo dhanna isku bahaysteen inay Afrika ka noqoto powerka ama super powerka geeska Afrika ilaa iyo Afrikada dhanba Soomaalida marka waxa la moodaa inay dagaalkan iyagu ka soo dhex toosayaan adduunkiyo la isku haysto wadankana laga duulayo Soomaaliya ee ka mid tahayba laakiinse hadda fiirsatiba mar walba Soomaaliya waxa u dalan inay eegaan siyaasiyaashooda qaabkay wax u go'aaminayaan iyo safiirka meesha u dhoofayo insha Allah waxaan isku dayayaa inaan mar kale ka hadlo mowduucan maanta laakiinse inta baan ku soo koobi doonaa wassalaamu calaykum